ilintii markay ka dhamaatay calool xumadii iyo wixii aan soo dhameystay ayaan dib u soo noqday. maanta qisadeena ama sheekadeena waxaynu ku soo qaadanaynaa oday Cabdulle. oday Cabdulle waxa uu yiraahday waxaan ku noolaa miyiga Xardheere. sanadka markuu waa sanadkii xornimada Soomaaliya ay qaadatay. anagoo meeshaas miyiga ku nool ayaa waxaa dhacday abaar saa'id u daran. waxaan imaaday magaalada Xardheere aniga oo qarash raadinayo iyo wax aan abaarta uga baxo. markii aan magaalada imaaday ayaa waxaa la ii sheegay nin dhalinyaro ah oo ilmo adeer nahay oo ku nool magaalada Beledweyne in oo sanadkaas beero badan abuurtay, xoolo badan iyo raashin badan ba u haysto. wax iiga sokeeyay magaaladaas Beledweynena aysan jirin. waxa uu yiraahday in adeerkay waxaan ahayn saaxiib aad iyo aad u jecel. waxaan go'aansaday in aan aado magaalada Beledweyne. magaalada Beledweyne iyo Xardheere dhexdooda gaari ka shaqeynayay oo la helayay ma lahan. meelaha qaar ayaa waxaa la helayay gawaari goos ah. gaadiid aan ku safrana ma aanan haysan. kadib go'aankaygii ayaan qaatay. waxaan soo aaday magaalada Beledweyne. safar dheer kadib waxaan soo gaaray magaaladii Beledweyne. waxaan u imaaday in adeerkay oo wax xoolo ah aan haysan oo abaartii annaga nagu dhacday ayakana ay saameysay, baahidana waxba aanan idhaamin. arrintii ayaan uga sheekeeyay in adeerkay aad iyo aad ayuu ila murugooday dhibaatada haysato iyo midda aniga isoo kaxeysay oo halkan keentay. inkastoo ay Soomaali ku maamaahdo iska xogwaanan xilka ma furto. qof baahan oo ku imaaday maanta dhaqaale ka doonayo haddii aad baahidaada u sheekaysid xilka furan mayso. laazim qofkii wax buu ka rabaa in aad gacanta u taagtid. wuxuu yiraahday markaa Cabdulle adeerkay gacantii hadduu ii taaga xataa waxaas ay siinayo wax aan reerkii ula noqon karo ma ahan. haddii in adeerkay aan sheekaysanay waxaan isla go'aansanay in uu magaalada Muqdisho ii amba bixiyo. halkaas maadaama oo tolkii iyo qaraabadii ay u badan yihiin ay joogaan, dad xoolo heesana ay joogaan, waa intaas aan ka soo helo dhaqaale aan sanadkaas abaarta uga baxo. waxaan soo aaday magaaladii Muqdisho. saaxiibkii in adeerkay wuxuu lacag raadiyay deyn iyo isku celcelisba wuxuu ii soo diray magaalada Muqdisho. haddii magaaladii Muqdisho aan soo gaaray sidii aan rabay liigama soo dhaweyn, waxaan ugama aanan helin. dadkii xilligaas xornimada la qaatay shaqooyin fiican ma lahayn, dhaqaale fiican wadanka ma lahan. qofkii xataa kula murgoodo wax uu ku siin karo oo ku awoodo ma lahan. aad iyo aad ayay magaaladii ii xumaysay oo dhaqaale kama aanan helin, soo dhaweyn kama aanan helin, sidii aan jeclaa liima aanan yeelin. anigana caruur baahan oo abaar joogto, xoolihii ka dhamaadeen ayaan ka soo tagay. magaaladii ayaan dhex wareegay, in muddo ah ayaan joogay. haddii aan waxba ka waayay waxaan go'aansaday in aan magaaladii Xardheere iyo miyigeygii aan isaga noqdo. maadaama caruurta waxba aan u helaynin waa inaan la joogaa ayaan go'aansaday. waxaaba magaaladii ka waayay wixii aan ku ambabixi lahaa qarash ah ayaan magaaladii ka waayay. si kasta ayaa yeelay, geed dheer iyo geed gaaban baa u fuulay. sidii aan ku ambabixi lahaa caruurtaydii iyo reerkii aan ka soo tegay aan ugu noqon lahaa, waxba waan ku sari waayay. ciil badan ayaan dareemay, calool xumo ayaan dareemay, waxaan sameeyay ayaan garan waayay, meel aan wax ka bilaabo ayaan garan waayay. maalinkii dambe anoo lambar 4 socdo
ayaa ilin iga soo daadatay ciilkii iyo calool xumadii hiisay waxaan isdahay intaan dadkan ku dhex ilmeyn lahayd bal dadka dhinac uga bax lambar 4 iyo eelaboorka dhexdooda wuxuu ahaa dhul aad iyo aad u bannaan oo bacaad badan dalcado bacaadna ay ku yaalaan dhankii eelaboorka ayaan aaday markaan cabbaar aan ka fogaaday ayaan meel iska fadhiistay ilintii markay iga dhammaatay calool xumadii iyo wixii aan soo dhammaystay ayaan dib u soo noqday nin dhalinyaro ah oo intii aan magaalada joogay aan wejigii isweji barannay ayaa bacaadkii iiga hor imaaday waa i wareysay warniyow oday cabdullow maxaa maanta ku keenay meeshaan bararka indhaha ka muuqdana waa maxay waxaan uga sheekeeyey dhibkii iyo arrintii i qabsatay aad iyo aad ayuu ula murgooday wuxuu yidhi ani dhaqaalo maanta aan kugu ambabixiyo xardheere aan kugu diro ma hayo 1 shilin iyo bar ayaan haystaa haddii ay gaari ku saarayso ay meeshii aad ka timaatay ay ku celinayso 1 shilin iyo bar ayuu siiyey wuxuu kaloo ii sii raaciyey haddii u baatactaa shaatigan waan ku siinayaa suuqa giiso oo waddanka dhanka sanadkaas dhar la'aan ayaa ka jirtay oo haddii aad heshid hal shaati waxbay ku goyn waa un 10 ama 15 oo 15 senti oo lacag Soomaali way ku goynaysay waxaan ku dhahay niyow shaati adiga hadda xiran tahay aniga damacayga ma jiro shilin barkaan Allah ay barakeeyo waan soo baxay intii aan lambar 4 aan soo gaarin ayaan waxaan la kulmay nin curyaan ah qaarka dambe oo dhan ay naafaka yihiin oo suxullada gacmaha suxulladoodii ku gurguurinayo markii aan soo agmarayay oo fadhiistay oo istaagay oo hakaday gacanta ayuu ii soo taagay bacaadkana aad iyo aad ayuu u kulul yahay waa xilli barqa ah qoraxduna waa ay kulushahay markii aan ninkii arkay aad iyo aad ayaan uga naxay waxaan dhahay niyahow cabdullow maanta qalad ayaa samaysay adiga gaajo yar oo ku qabatay ayaad maanta duurkan ayaad la oynaysay ilaahay asagoo ku siiyey caafimaad bal fiiri ninkan dhibaatada haysato qorax kuleelkan xamaaranayo adiga gaajada ku haysay xataa in aad dad tuugsato ii kaalmeey kuma iisan gaarsiin asagana waxay ka maraysaa qof u yaqaan iyo qofkii u yaqaanaba inuu gacanta u horsado waxaan ku aansaday shilin iyo barkii oo ninkii soo siiyey in aan shilinka asaga aan siiyo waxaan dhahay oo shilinkan hoo aniga halkaas waxaa uga imaaday oohin dhaqaalana kuma dhaame lugahaas unbaa ilaahay siiyey aan ku soconayo bal faatixada soo mar inuu ilaahay faraj ii furo dhaqaalihii aan reerkayga ku aadi lahaa oo ilaahay magaalada niga siiyo ninkii aad iyo aad ayuu u farxay wuu duceeyey waan ka soo tegay markii aan ninkii wax yar aan soo dhaafay ayaan waxaa la kulmay gaari yar oo taxi ah oo nin iyo naag caddaan ah ay wataan bacaadna oo uga jiro ay ku dhibaatoodeen ay si u qufaayeen ay u riixayeen meesha wax dad ah oo soo maraya ma lahan oo waa xilli barqa ah qof kasta gurigiisii iyo goobtiisii shaqada ayuu ku jiraa nin bacaadkan iyo duurkan xaggooda soo aadayaba ma jiro labadii qof ee caddaanka ahaa oo Itaaliyaan ahaa ayaan ku leexday waxaan la bixiyay gaarigii waa la qoday waan la riixay bacaadkii markii ay ka baxeen ay dhaqaaqeen ayaa islaantii waxa ay la hadashay ninkii ay la hadashay aniga luqadooda ma aqaani laakiin waxaan u fahmay ninkan wax la'aan ha dhigin in ay leedahay ninkii ayaa soo degay lacag 100 shilin ah ayuu siiyey 100 shilinna gaari haafkiis oo raashin ah ayay ii rartaa xardheerana si nabad ah ayay ugu geysaa aad iyo aad ayaan ugu farxay wax aan filayayba ma ahan oo ninkii masaakiinka ahaa aan 1 shilin siiyey si degdeg ah ayaa ilaahay ducadiisii igu aqbalay farajna ilaahay ugu furay waxaan imaaday suuqii ayaan imaaday
raashin badan ayaan iibsaday gaari faaruq oo xardheer u socday ayaan dhinac dhan aan ka rartay shirkana waan qabsaday dadku waxay leeyihiin yahow cabdullo hadee saaki markaa naga baxday waxba ma aadaysanine maantana suuqa ayaad ku dhex waalatay ee see wax u jiraan waxaan ku dhahay ducaa ilaahay ii aqbalay ayaan farajkan oo dhan aan ku helay iyo hal shilin aan bixiyey ilaahay dartiis u bixiyey ayaa adduunyadii anoo joogaba saan ilaahay igu siiyey aakhirana waxaan ilaahay ka rajaynaa shilinkaas in uusan iga habaabin ee albaab janno igu furo sidaas ayaan magaaladii xardheer ku aaday aniga oo faraxsan subaxdii habeen hore murugo ayaan la seexday subaxdiina oo hinta ayaan isku celin weysanaa subaxdii dambena aniga oo faraxsan ayaan gaariga shirka ka saarnaa waxaana ku helay wax kale ma ahan halkii shilin aan u baahnaa ee ilaahay dartiis aan ninka masaakiinka aan u siiyey markaas oo qisada nooga sheekaynayo dadka waxa uu ku baraarujinayay masaakiinta in aan lacag marin ee gacanta loo taago ama waxa haysto ama yuusan haysan baahidii oo kuu toogsaday ee ay kuu baryay ayaa hayso unsi gacanta u taag halkaas ayaan qisadeena aan kusoo afmeeraynaa haddaa qisooyinka noocan ah ka heshay fadlan like saar subscribe nagu soo biir si aad noo dhiirigelisid waadna ku mahadsan tahay sida qiimaha leh ee aad noola socotay wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu